dowladda Kenya waxa ay sheegtay inay cadow ku tahay Soomaaliya dalkeeda isla markaana ayna ka soo bixin daris wanaaga iyo abaalka ay u gashay sida lagu sheegay war ka soo baxay Kenya. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya Masharu Kamo oo shir jiraad ku qabtay Nairobi waxa uu sheegay in ay Soomaaliya tahay cadowga Kenya kadib markii Soomaaliya ay dhulbadeedkeeda ku darsatay ceelal shidaal oo lagu muransan yahay sida lagu sheegay hadalka ka soo baxay dowladda Kenya. Xalay xilli dambe ayay ahayd markii ay la baxday danjiraheedii u joogay Soomaaliya waxa ayna amar ku bixisay in midka Soomaaliya uu dib ugu laabto Muqdisho. Kenya waxa ay sheegtay inay 6 bishan danjiraha Soomaaliya ee wadanka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ay kala hadashay shirka London kaasi oo lagu soo bandhigay xirmooyinka shidaalka ee ku jira Soomaaliya kuwaas oo loo suuq geynayay adduunka. Qariirada lagu soo bandhigay shirkaasi ayay sheegtay inay Kenya ku jirtay qayb ka mid ah biyaha Kenya oo ay Soomaaliya ku darsatay dhulkeeda. Dowladda Soomaaliya wali kama aysan jawaabin xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan labada dan. Murankan ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2009 kaasi oo ka dhashay xariijinta soohdinta ee Soomaaliya la raacday bariga halka Kenyana ay ku doodeysay in soohdinta la qaloociyo laguna celiyo gudaha Soomaaliya. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ka dhexeeyay xiriir soo jireen waxaana si weyn iskugu milmay bulshada labada dhinac oo ah dana wadaag. Haddii ay sii socoto xiisadani waxa ay si weyn saameyn ugu yeelan doontaa ganacsiga iyo isku socodka dhinaca xuduudda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool gudaha Kenya kuwaasi oo iskugu jira kuwa leh ganacsiyo kala duwan iyo dad ay salkiciyeen colaadihii ka dhacay Soomaaliya kuwaasi oo ku nool xeryaha waaweyn ee qaxootiga ee gudaha dalka Kenya. Sidoo kale Kenya ayaa Soomaaliya waxay u soo suuq geysaa maandooriyaha qaadka waxaana la rumaysan yahay in asbuucii Soomaaliya ay ka soo gasho lacag dhan qiyaas ahaan 2.7 milyan oo lacagta Mareykanka ah. Kenya sidoo kale Soomaaliya waxa ka jooga cutubyo ka socda ciidamadeeda kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka nabadda ee Midowga Afrika waxa ayna ka howlgalaan gobolada Jubbooyinka. Inkastoo ciidamadaasi muran weyn ay dhaliyeen markii ay soo galayeen gudaha Soomaaliya maadaama uu shaki ku jiray in ay ku soo galeen mandate-ka AMISOM, haddana Kenya waxa ay si weyn ugu doodeysay in ay ilaalinayaan danaha gaarka ah ee ay ku leedahay Soomaaliya oo uu ugu weyn yahay ammaanka xuduudda. Sidoo kale Kenya ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore ku dhaqaaqday tallaabooyin u muuqday daandaansi siyaasadeed kadib markii ay Kenya darbi dhismihiisa ka bilowday xuduudda kala qaybiya labada dal iyo in ay tiro ka dhowr jeer codsatay in albaabada la iskugu dhiftay xerada ugu weyn qaxootiga adduunka ee Dadaab taasi oo ay ku jiraan kumanaan nabadgelyo doona oo Soomaali ah iyadoo Kenya ka duuleysa in aysan Soomaaliya xilligan awoodin in ay dib u ceshato qaxootigeeda.